بوليسكا Soomaaliya ayaa sheegay in amniga magaalada Muqdisho uu soo hagaagayo sababtuna ay tahay wada shaqayn iyo tayeen lagu sameeyay hay'adaha amniga ee Soomaaliya. Taliye-ku-xigeenka Booliiska Soomaaliya General Zakiya Hussein ayaa waxay tilmaamtay in sidoo kale shacabka magaalada Muqdisho ay hadda la shaqeeyaan ciidanka booliiska. wariyaha VOA London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa xafiiska VOA London ku wareystay General Zakiya. hadda markino isbabar dhigtid labadii sano la soo dhaafay iyo qaraxyadii iyo dhacdooyinka ka dhacay gobolka Banaadir iyo caasimadda Muqdisho gaar ahaanba waxa arkaysaa in horta hoos u dhac xoogan oo ku dhacay dhacdooyinka oo falalka ama lid ku ah amniga ha noqdaan qaraxyada iyo ha noqdaan kuwa loo yaqaan target operations ama target assassinations oo ku dhufo ka dhaqaaqo dadka markino oo bistoolay intay dilaan ordaan hoos u dhac xoogan baa ku yimid run ahaantii taasna waxyaalo badan sababay waxa weeyaan horta aad in loo tayeeyo ciidanka booliiska ka howlgala gobolka Banaadir waxaana si toos ah la isku xiray nabad sugidda gobolka Banaadir iyo booliiska gobolka Banaadir nabad sugidana xogta markay helaan isla markii la wadaagaan booliiska gobolka Banaadir iyagana ay ka howlgalaan waxa si dheer oo run ahaantii aan ka faa'iideysanahay fursadan ugu mahadcelinaya shacabweynaha gobolka Banaadir oo aad markino booliiska hadda la shaqeeya waxaan u furnay number 991 la yiraahdo halkaas ay xogta markino in la soo gudbiyaan dad badan halkaas ay lagu soo qabtay waxyaalo badan halkaas ay laga hortagay marka laga hadlayo arrimahan hadda aad ka dhawaajisay ka sokow dad fara badan waxay qabaan in wadooyinkii magaalada oo dhan ay xirxiran yihiin meel walba booliiska taagan haddana qaraxyadii ayaa dhacaya mararka qaar xataa dad ayaad u soo qabataan hawlgallo aad sameysaan haddana dadkii waa dhibaataysan yihiin marka ma la dhihi karaa wadooyinka waxaa muhiim ah in la furo oo amniga si kale aad ku sugtaan horto arinta wadooyinka hal arin aan ka dhaho anaga jidweynayaasha oo caadiga maanan xiran anaga waxa xirna waxa weeyaan waa jidcadiyaasha sababta loo xiro waxa weeyaan marka fiirinay meelaha ka baxaan dadka argixisada ama waxa lid ku ah amniga oo dhanba horta waxay isticmaalaan 190 waa jidcadana waa xamarna waa 10 jidcada baa ka jiro ina soo qabatan anaga ciidankeena tiradeena marka la fiiriyo jidcada walba ciidan anaga ma istaajin karno jidcadii markii la xiray kadib waxa fududaatay marka in gacan lagu soo dhigo dadkii markano falalka geesay isla markiiba dhowr jeerna waan ku shaacinay shirarka jaraa'idaan qabto in maxaan ku raada howlgalo iyo anagoo taagan oo ama si gaadma ay nagu imaadaan bob nagu tuuraan isla markiina gacanta lagu soo dhigo horta taas in la fahmaa weeyaan lawa horta xisaabta lagu darsadaa xamar waa caasimada adduunka maanta London baa joognaa adigoo degan North London aad ka howlgalaysana West London waxay kugu qaadanaysaa 2 saacadood inaad markino magaaladaada gaartaa jidad waxa jiro oo si toos ah magaaladaana xataa ugu xiran iyadoo oo dambiyada iyo dhibaatada xamar ka dhicin London ayaa markino jidad badan la xadiday waxa leedahay jidadka marka aad xirteen yar jidcadayaasha ah ma waxay soo kordhiyeen aad aaminsan tahay in amnigii magaalada uu adkaado 100% taasaytu way soo kordhisay sababtoo waxa noo fududaatay inaan gacanta ku soo dhigno dadka falalkan ay tageysta qaraxyada marka sidii hore way ka yaraadeen miyaad aaminsan tahay baadaan in aaminsaneyn adiga statistikada naftirkaaga soo weyn hoos u dhac xoogan oo ka yimid wali laakiin ma aaminsan tahay inay qaraxyada dhici karaan mar haddii waxaan la soconaa horay adiga laftirkaaga inaad u soo bandhigtay warbaahinta baabuur aad ku tuhmaysaan inuu qarax sido baabuurkiina ilaa hadda meel uu ku dambeeyay cid og ma lahan baabuurkaas horta anaga macluumaadka waxaan u soo gudbinay shacabweynaha sababtoo shacabweynaha waa nagu waajib inaan la wadaagna wixii horta iyaga naga saacidi karaan wixiina iyaga ku soo wajahan oo anaga maxaan ku radaa howlgaladeena wax u dhimayna horta waa inaan la wadaagna nasiib daro laakiin waxa moodaa dad inay jiraan dad oo maxaan ku radaa waxaan oo dhan kafta u qaadanayo waxayna ogeen adiga markuu tali xigeen ciidan booliis uu leeyahay gaari noocaas ee beledka ku jira ama dad noocaas baa la raadinaya fadlan meesha ku aragtid noo soo sheeg baabuurkaas hadda aan shaaciyay dad badan run ahaantii la soo wadaagay masuuro iyagoo joogaan ka soo qaadeen dhaheen waa kana baabuurka halkaan ay marooya halkaan ay ku sii socdaa laakiin nasiib daro dad baa jiro oo taasayta maxaan ku radaa kaftan ka dhigtay kaftankaas adiga waxa maanta kaftan kula walaalkaada u biri karfan u noqon kara run ahaantii horta waan ugu digayaa dadka aniga iskama hadlooyo sabab baa keentay dawladda maxaan ku radaa nagu howlgelisay oo nagu qasabtay in bulshada aan la wadaagno howlgalada iyo wixii markana noo soo hagaaga iyo wixii lid ku ah marka wax badan ay ka saacidaan marar qaarkood waxa dhacda in booliska ay geystaan falal liddi ku ah xuquuqda aadanaha dad shaqaysanaya oo bajaaj ka shaqaysanaya ayay boolisku toogtaan
arrimahaas maxaa ka qabateen ilaa hadda? wax badan baa laga qabtay horta kow ciidamo badan oo laga howlgeliyay gobolka Banaadir oo anaga aan dareynay inay weli tababar dheeri u baahan yihiin. horta waa la soo xareeyay oo magaalada hadda kama howlgalaan oo tababar dheeri bay hadda iskuul bulisiye iyo meelaha markan oo tababarada ku sameeyno ee hadda ku xareysan yihiin. waxa xataa sii dheer in dadkii falalkaasi geystay waagi hore waxa dhici jirtay askari markuu fal geystaa inay markano tolka marxuumka iyo askariga reer tolkiisa inay ka heshiyaan. howlahaas oo dhan anaga hadaan nahay booliiska waa la joojiyay. askari hadda maanta haduu fal geysta asaa ka jawaabaya, waxaana la tiigsanaya sharci. dhowr xaban haddana xabsi way ku jiraanba oo garsuuyaal waayo waxay sugayaan processka maxkamadda. taasi waxay ahayd Zakiya Xuseen, tali ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iyadoo London joogta u warramaysay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.